ismahaan maxamed salebaan tubeec iyo waliba xasan maxamed salebaan tubeec oo kamid ah caruurta uu dhalay fanaanka qaranka Soomaaliyeed maxamed salebaan tubeec oo in muddaaba isagu ku xanuunsanayay dalkan Jarmalka ayaa telefishinka caalamiga ee Home Cable TV waxay uga warbixiyeen xaaladda uu ku sugan yahay boqorkii codka Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan uga mahadcelinayaa Home Cable TV oo nagu soo booqatay dalka Jarmalka anagoo u nimid xanuunka aabe sida wada ogtihiinba dhammaan waxaan u mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku hadasha dhammaan waxaan u mahadcelinayaa dadka ku hadla afka Soomaaliga meel kastoo joogaan sida ay duco iyo deeqba ugu soo direen maxamed salebaan tubeec caafimaadkiisa xaaladiisa caafimaadna hadda ilaa hadda wali caadi ma aha laakiin insha Allah waxaan sugaynaa inay caadi noqoto. warahmatullahi wabarakatuh. halkan waxaan ugu soo booqday dalka Jarmalka Home Cable TV una soo booqday aabaheena soo eegay oo meesha ku xanuunsanaa muddo iskaga xanuunsanaa. waxaan halkan aan uga mahadcelinayaa Soomaali oo dhan inta dhanka kalena waxaa isaguna goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka midnimada Soomaaliyeed ee dalkan Jarmalka Yaxya Wali Abokor oo sidoo kalena aad ugu mahadnaqay dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyagu gacanta way ka geystay sidii gargaar caafimaad loogu fidin lahaa boqorka codka Soomaaliya maxamed salebaan tubeec. مرة روحنا halkan ugu mahadcelinayaa Home Cable TV sida ma aragtay ay isu soo xilqaameen oo ay ma aragtay ay ugu soo booqdeen magaalada Regensburg ee dalka Jarmalka halkaas oo ku jira lagu daaweynayo maxamed salebaan tubeec. marka anigoo ku hadlaya magaca ururka midnimada Soomaaliyeed ee Jarmalka waxaan runtii aad iyo aad aan ma aragtay ilaah ugu baryaynaa fanaanka weyn maxamed salebaan tubeec inuu ilaahay caafimaad siiyo anigu Soomaali hadda boqorka codka Soomaaliyeed maxamed salebaan tubeec ayaa in muddo ku xanuunsanayay dalkan Jarmalka iyadoo dhaqaatiirtuna ay arrimihiisa caafimaad haatan gacanta ku hayaan waxaana si weyn uga soo jawaabay baaqi maxamed salebaan tubeec boqorka codka Soomaaliyeed gudoomiyihii gobolka Banaadir mudane Tarsan iyadoo ilma maxamed salebaan tubeecna ay si wada jir uga codsadeen dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay ducada ku soo kabaan aabahood si wala u caafiyo. Mustafa Xaaji Aadan Haaruun iyo waliba Nasraadan Cabdi telefishinka caalamiga Home Cable TV wararka Yurub.